haddii aad tahay qof sameeya arrinkan psychology waxa uu kugu tilmaamayaa inaad tahay qof aad u caqli badan tusaale waxaa fadhisaa meel maqaaya agtaada waxaa ku sheekaysanaya dad information ah haysi ka been sheegaya yacni xog ah haysid boqolkiiba boqol saxnaashaheeda ayay dadkan boqolkiiba boqol ka been sheegayaan xaaladdu markay halkaa joogto qofku waxa uu u kala baxayaa laba nooc qof waxa uu sameynaya waxa uu isku daya inuu dadkaasi dhex galo informationka uu saxo una sheego waxa ay sheegayaan inay been yihiin halkaasina waxaa ka bilaabmaya muran aad u xoogan qofkiina waxa uu ka soo bixi doonaa dooda asigoo energy badan ka baxay very stressful qofna waxa uu sameynaya wuu iska indhatiraya asigoo og dadkan waxa ay sheegayaan inay been yihiin boqolkiina boqolna huba xogta siday u sheegayaan inay been tahay qofka noocaasa psychology wuxuu ku tilmaamaya inuu leeyahay wax loo yaqaano emotional self regulation yacni qof emotionkiisa u sameeyey sharciyo aanan la gudbaynin mararka qaar aamusnaanta maahan daciifnimo ee waa caqli wax walba uma baahnid inaad saxdid waa inaad barataa inaad iska indhatirtid waxyaabaha qaar yacni wax walba inaad dhexgashid boqolkiiba boqol aad saxdid muhiim ma ahan waxaa keliya ka dhexlaysaa stress aad u badan waa inaad barataa inaad waxyaabaha qaar ah ka aamusi kartid oo aadan ka hadlin dadka qaar ciilaa ka qabanaya agtooda markii been lagu sheegay isma celin karaan fadlan dadka noocaas haddaad taqaanin muuqaalkan la wadaag commentiganuu la wadaag qaabka u falcelisid markaa aragtid qof agtaada been ku sheegaya sidoo kalena soo follow garay 10,000 ayaan aad ugu dhownahay peace